one speed ka midka loo yaqaan oo dhalinyaranimadii shaqo la'aan ka wada dhigay oo qof walba gidaarka intuu la fariisto darbiga la fariisto one speed ka waa qamaar la casriyeeyay diyaaradu maanta oo dhan haatinahay mar gaariyo ordisiinahay marba waxbuu samaynahay lacag uu dhiganahay mar asaa laga dilanahay marna asaa wax dilanahay waa xaraan dariiqa aad wax ku raadinayso shaqada marka ay tahay waa dariiq xalaal waa inuu dariiq xalaal waa inaad wax ku raadinayso maxaa yeelay hadda waxa soo baxay applicationno khatar ah oo qofkii isagoo gurigiisa fadhiyo uu leeyahay lacagan ku helaya applicationka oo sidii qamaarka loogu cayaaray waa duruqda khaldan oo ilaahay uu kugu caroonayo wax markaad wax raadinaysid dariiq sharciya ku raadi waxa ka mid ah applicationada hadda soo baxay one speed ka midka loo yaqaan oo dhalinyaranimadii shaqo la'aan ka wada dhigay oo qof walba gidaarka intuu la fariisto darbiga la fariisto one speed ka waa qamaar la casriyeeyay diyaaradu maanta oo dhan haatinahay mar gaariyo ordisiinahay marba waxbuu samaynahay lacag uu dhiganahay mar asaa laga dilanahay marna asaa wax dilanahay waa xaraan waa tii nabigeena sala allahu calayhi wasalam uu lahaa fattaquu llaaha waajmiluu fi dalab war ilaahay ka baqa meesha aad wax ka raadinaysaan meesha aad wax ka raadinaysaan ka fiirsada meesha aad wax ka raadinaysaan ka fiirsada qimaarka qur'aanka ilaahay ku xarimay innama alkhamru walmaysiru walansaabu walazlaamu rijsun min camali الshayطaani fاjtanibuuh lacallakum tuflixuun almaysir woy waxaan hadda applicationkan la soo degdegsanayo ee one speed loo yaqaano waa qamaarka ilaahay maysir uu ku tilmaamay lacagtii mar adiga lagaa disho waa qamaarkii caadiga suuqyada caadiga lagu cayaari jiray oo application loo bedelay way qaab electronic loo bedelay waxa ka mid ah sayji on barnaamijkan hadda la yiraahdo hadda dad badan isaguna ay ku daateen sayji on state barnaamijkan la yiraahdo oo isagana hadda la soo degsanayo dadka qaar waxay leeyihiin waa ganacsi maxaa loo xarimayo waa ganacsi war ganacsi ma aha xoolihiina yaan lagu dhicin xoolihiina yaan lagu dhicin waad ogeydeen inta application oo Soomaali xoolaheedii lagu dhacay oo ilaa hadda dadka qaarkood ay farta qaniinayaan herbaadiyaha qaar geeli soo gatay geeli soo gatay forex xagee ka baxday xagee ku dambeysay xagee ka baxday forex war meesha aad irsaaqada ka raadinayso ilaaha kuu barakaynaya dariiq saxan hadduu yahay meeshan waxa inta la joogayo oo wax iska yar qaar waxay ku leeyihiin sayji onkan waa ganacsi war ganacsi ma aha ganacsi hadduu yahay meel horta wuxuu leeyahay diboosti ah diboostigaas waxa weeye waaba xaaraan qaybta dhowr option uu hortaada soo dhigahay qaybta diboostiga uu ku leeyahay waa lacag dhigasho faa'iido lagu dul saaray lacagtii meesha aad dhigatay waa ribo cado xaaraan qaybahan kale ama funaanadaha lagu soo dirayo ama mobilka lagu soo dirayo oo lagu leeyahay iibso ama maaragtay order isticmaal maalintii 5 goor ama 20 ama 50 goor oo dhor samee ka bacdi waxa ku fuulaya commissiona ku fuulay $4 $5 waxba ku fuulaya leeyahay wuxuu haday beec yihiin ma lagu fasaxo funaanadan cidda doonto aad ka iibsatid ma la fasaxayo process iyagu ay ku jeexanay waxay ku leeyihiin halka orderka ku dhufo qoladaas marka tus funaanad qolo kale uu ka dhacay war waxaan hadda soo iibsato dariiq sharciya uu yahay ciddaad rabto la wadaag ka sii iibso ciddaad rabto la wadaag oo ka sii iibso laakiin ma ahna waa application silsilad degsan qof uu remote-ka hoos uga hayo xukumayo oo hal meel inaad u dirto mooyee ama hal qolo iyagu ay ku amraan inaad u dirto mooyee funaanad ama mobile ciddaad doonto aad ka iibsan karto ma aha qaar waxay ku leeyihiin waa maalgashi maxaa loo diidahay suuq weyn oo Alibaba iyo Leeraa iyo waxay ku sheegayeen
ayaa lagu maalgelinayaa lagu leeyahay war hadduu maalgashi yahay qiraad sharci qiraad sharciyana ma ah qiraad sharciga waxaa lagu yaqaanaa inay faa'iidana jirto khasaarana jirto barnaamijkan yacni optionskiisa ka mid ma aha wax khasaaro ah wax khasaara ma laha mar walba uun faa'iido iska socota haddii uu yahay qiraad uu yahay loss muxuu u jiri waayey minus muxuu u jiri waayey ma jiro ganacsi ma ah qiraadna ma ah ogaadana waad ogaan doontaan qofkii u noolaada meeshii forex uu ka baxay uu ka bixi doonaa war Soomaaliya hantidiina ayaa la idinku sirin mar walbaba wax cusub oo application cusub ayaa la idin soo saaraa markaas aad geelin u soo iibsataan mar walbaba oo qaar guryahooda ay u iibiyaan mar walbaba war risqiga ilaahay dalab laakiin dariiq saxan ku raadso irsaaqada ilaahay asbaabta waxaa ka mid ah irsaaqada ilaahay uu ku barakaynayo taqwa Allah وهي من أعظم الأسباب في البركة في الرزق وأنا أسبابته أقوين أي إلهي رزاقته وكواسعيه